waxaa la xaqiijiyay goor dhow in dhaawacii soo gaaray gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow u geeriyooday dhaawacii soo gaaray kaasoo ku dhaawacmay qaraxii dhawaan 24kii bishii July ee sanadkan ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. dhaawaca gudoomiyihii gobolka Banaadir oo lagu daweynayay isbitaalka Hamad ee ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar ku sugan. waxaa jira mas'uuliyiin kale oo ay kamid tahay gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seelab Xaabsay iyo xubno kale kuwaas oo iyaguna lagu daweynayay isbitaalka uu hadda yaalo maydka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. waxaa warkan xaqiijiyay safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar. safiirka ayaana waxa uu sheegay in gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow uu ugu dambeyn u geeriyooday waxaana dhaawaca gudoomiyaha markaa oo halis ahaa dhawaan loo qaaday dalka Qatar. gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaana kamid ahaa mas'uuliyiin markaa ku dhaawacmay qarax dhawaan ka dhacay 24 bishii July ee sanadkan xarunta maamulka gobolka Banaadir oo shir ka socday halkaas oo uu markaa soo galay qof naftiis hore ah oo markaa sababay in dadkii halkaas ku sugnaa ay badan dhintaan. geerida gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaa ka tacsiyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo dhammaan iyagoo tacsi u diray ehelka iyo qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow eebaha u naxariistay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u celiyay jinsiyadii labaad ee uu ka qaaday dalka Mareykanka. war-saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya ayaa agaasimaha warafinta madaxtooyada Soomaaliya Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed waxa uu ku sheegay in hawshaasi ay muddo soo socotay ayna ku howlanaayeen sharciyaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha Soomaaliya Mareykanka. madaxweyne Farmaajo ayaa muddo ku noolaa waxna ku bartay dalka Mareykanka isagoo xilka madaxweynenimada uu hadda hayo ka hor sanadkii 2010 dalka ka noqday ra'iisul wasaare. dastuurka kumeel gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyada kale balse markii la doortay kadib ayaa madaxweynaha waxa uu si kedis ah u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka taas oo maanta soo idlaatay.